dagaal ka dhan ah Somaliland ayaa waxa wada qorsheynaya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale Ismaaciil Cumar Geelle. dagaalkaas iyo sida loo qorsheeyay ayaan daawada kula wadaagaya iyo sidoo kale sababta ay Puntland ilaa iyo hadda uga hadli laadahay aqoonsiga la siiyay Somaliland iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyay aqoonsiga Somaliland iyo dadka ka hadlay ayaan kula wadaagaya. balse marka hore wax ka codsanayna YouTube-ka ku soo birto, subscribe dhahdo, muuqaalka la iga saarto, gambaleelkana furato si ay ku soo gaaraan warbixinada maalinlaha ah aan halkan ku soo gudbino. haddii aan ku bilaabo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa qorsheynaya dagaal ka dhan ah Somaliland, kaas oo la rabo in Somaliland lagu khalkhalgaliyo sidoo kalena Somaliland lagu kala geeyo. Xasan Sheekh Maxamuud oo dhawaan ka degay dalka Djibouti isla markaasna la kulmay Ismaaciil Cumar Geelle ayaa waxay ka wada hadleen sidii aqoonsigaas Somaliland waxba kama jiraan looga dhigi lahaa iyo sidoo kale sidii looga hortagi lahaa aqoonsigaas ayay wada qorsheeyeen. waxayna isla garteen in marka ugu horeysa la khalkhalgeliyo amniga ay haysato ama amaanka ay haysato Somaliland, kaas oo la qorsheeyay in jamhado laga abuuro sidii Puntland ba lagu sameeyay in ciidamo lagu soo deegaanka ah lacag la siiyo, mushahar loo qoro, la qalabeeyo, isla markaasna si ay u khalkhalgeliyaan loo abuuro. Ismaaciil Cumar Geelle iyo sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud waxa isla garteen in magaalada Boorama caasimadda gobolka Awdal oo iyagu hadda kacdoono aan aad u xooganayn wadaha dadka reer Boorama in laga faa'iideysto oo halkaas jamhada laga abuuro si loo khalkhalgeliyo amniga ay haysato maamulka Somaliland oo ah wax ugu weyn oo indhaha caalamku ay u soo fiirinayaan. waxa la isla gartay in ciidamo kala duwan oo tababaran la geeyo Djibouti laga dejiyo, isla markaasna si aayar lagu soo geliyo Somaliland, isla markaasna ay marka koowaad khalkhalgelin ka bilaabaan magaalada Boorama ee caasimadda gobolka Awdal. dadka reer Awdal oo iyagu tabashooyin yar ka qaba maamulka Somaliland ayaa inta badan sameeya banaanbaxyo ay uga soo horjeedaan maamulkaasi. taasna waxa la rabaa in looga faa'iideysto oo khalkhalgelin amni laga abuuro si haddii ay khalkhalgelin amni ay ka bilaabmato ay Somaliland cidna isku haleyn weydo inay timaado. Somaliland oo arrinkaas ka warheshay ayaa gabi ahaanba iska dirtay safiiradii ka socday Jubaland u fadhiyay Djibouti u fadhiyay Somaliland. way ceerisay Somaliland kadib markay aragtay in meesha ugu weyn oo la rabo in laga soo galo ay tahay Djibouti. Djiboutina sidoo kale waa ay ceerisay safiiradii u fadhiyay Somaliland dalkeeda. dhanka kale waxaas Ismaaciil Cumar Geelle iyo sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud ayaa albaabo badan wada gargaraacaya si aqoonsigaas Somaliland meesha looga saaro oo dalkaas aqoonsaday aysan dal kale soo raacin, kaas laftirkiisa aqoonsadayna aan waxba kama jiraan laga dhigo. marka maxay tahay sababta ay Djibouti uga soo horjeedo aqoonsiga Somaliland? wax ugu weyn oo leeyahay waa uga soo horjeeda waxa weeye in saldhigyo badan ay ku yaalaan hadda Djibouti, isla markaasna saldhigyadaas iyo sidoo kale caalamku uu soo wareegi doono Somaliland oo ku taala meel caalami ah oo inta badan dadku indhaha ay ku hayaan. taas ayaa ugu weyn ayaa la leeyahay in ay aqoonsi hesho oo dal noqoto. haddii dal noqotona ay ka sii hormari karto ayaa la leeyahay Djibouti. saasuuna Ismaaciil Cumar Geelle dowladda federaalka Soomaaliya iyo Xasan Sheekh Maxamuud ugala shaqeynaya si aysan u helin wax aqoonsi ah Somaliland. kama aha inuu jecel yahay inay kala go'aanin dadka Soomaaliyeed balse iyo dalka Soomaaliyeed, balse waxay ka tahay in aan dalkiisa dhaqaalaha
waxa weeye uu helayo iyo caalamka kusoo hiranayo aysan Somaliland kala wareegin. taas ayaana la leeyahay waa wax ugu weyn oo Ismaaciil Umar Geele ka dagaalamayo ilaa iyo hadda uuna aqoonsiga Somaliland uu rabo in waxa weeye uu wax kama jiraan noqdo. dhanka kale waxa ka aamusay aqoonsigii la siiyay dalalka dariska ah ee Kenya iyo sidoo kale Ethiopia oo labadaba ilaa iyo hadda ka aamusay. waxaana la filayaa baa la leeyahay in Ethiopia ay noqoto dalalka ugu horeeya ee kale ee aqoonsada Somaliland. waxa la leeyahay saraakiil ka socota iyo mas'uuliyiin ka socda Somaliland ayaa ilaa iyo toddobaadkii la soo dhaafay ku sugan caasimadda Addis Ababa ee dalka Ethiopia. waxaana leeyahay wada hadal ayaa u socda Somaliland iyo sidoo kale iyo Ethiopia oo ku saabsan dhanka aqoonsiga. Puntland marka maxay u diiday ilaa iyo haddana uga aamusan tahay? madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo kooxdiisu ka hor intii aan aqoonsigan Somaliland uusan imaan dagaal xoogan oo ka baxsan xadka Soomaalinimada iyo siyaasadda dadka Soomaaliyeed ka dhaxaysa ayay kula dhaqmeen Puntland oo ay ka tahay in aysan garab siin Puntland maalintii ay ugu baahida badnayd in la garab istaago oo ahayd markii dagaalku ba'an ka socday Buura Calmiskaad ee gobolka Bari ee ciidamada difaaca Puntland dhibaatooyinka waaweyn ay kala kulmayeen. dowladda Puntland ay dhibaatada weyn oo dhaqaalaha ay kala kulmaysay taas ayaa sababtay lambar 1 tan labaad waxa la leeyahay xasan sheekh maxamuud wuxuu sameeyay jamhado Puntland ka dagaalama oo dhibaatooyin u geysta oo khalkhalgelin amni ka sameeya ayuu bilaabay oo ciidamadii Puntland joogay ayuu yiri mushaharo badan oo kan ciidamada difaaca Puntland ay qaataan ka badan ayaa inuu qorayaa buu yiri si khalkhalgelin amni ay u sameeyaan ciidamadii Puntland joogayna ay xaqiisa inta badan ay ugu soo wareegaaneen. waa markii ugu horeysay arrin noocaan oo kala ah oo siyaasad noocaan oo kala ah oo xadka ka baxsan ay isku adeegsadaan dadka siyaasiyiinta Soomaalida ah. xasan sheekh maxamuudna waxa la leeyahay isaga markii hore siyaasadda Soomaalida iyo dadkii Soomaaliyeed kala dilay. dhanka kale wuxuu kala dagaalamay dhaqaalihii Puntland kala dagaalamay madaxweyne Deni iyo sidoo kale Maxamed Abdullaahi Farmaajo waqtigii uu joogay. Maxamed Abdullaahi Farmaajo siyaasad ahaan way ishayeen laakiin dhaqaalaha Puntland waa loo sii deyn jiray wax jamhada aan Puntland lagama dhex abuurin. marka waxa la leeyahay taas ayaa Puntland ilaa hadda ku kaliftay inay arrimahaas ka aamusto. wixii warar oo daawadayaal ka soo kordha halkan ayaan kula wadaagayaa. adigana waxa ka codsanaya in halkan ku soo biirto subscribe dhahda muuqaalkan laga saarto. waa maasanta.